قال دنتي ويقانا مثالك ugu fududna waa ka hadaan soo qaadanayo Turkiga waxa laga sameeyay meeshan xuduudda Suuriya ay kala yihiin dhinaca waqooyi bari ah niman Kurdiyiin ah oo Mareykanku uu sameystay oo hubeeyay oo ugu tala galay inuu ku kala gooyo Carabta iyo Turkida mar walba waxay ahayd kelida oo Turkiga oo kuwa gaalada ah ay kolba ka duraan kelida ka juqjuqeynayaan kuwan ay ku soo dirayaan wadankiisa dhibaato gaarsiinayaan sayid wuu ku rafaaday marka xuquuq aansaday marka waxaan hoosta laga soo geliyay inuu iska fogeeyo si meesha ay meel nabad u noqoto mid kale dadkan ay soo eriyeen ee Carabta ah ee Sunniyiinta ah ee Turkiga ay isleeyihiin Sunniyiin muslimiin ay isleeyihiin oo dhulkooda laga soo saaray oo qaxootiga Turkiga ku ah oo malaayiinta ah inay dhulkooda intuu ku celiyo meeshan ay degaan xur marka ay suga xuduud ilaa 30 kiiloomitir oo dhinaca iyo geesaha kale ayadana intuu go'aansaday ayaan soo xiraaya qaxootiga Suuriya waan ku soo celinayaa Kurdiyiintan ay nagu soo hubeynayaan Mareykankuna meeshan ka bixinayna meesha kale doon ha aadeen dagaalkii markuu bilaabay oo saar loo arkayba maalmihii kood way yara qayqayliyeen bal inuu ka joogsado tuu ka joogsanaya qof markuu go'aan gaaro waa inuu hor u socdo afmaayma waxa la yiraahdaa lan uur nugul adin mudubow nin waxa laga wadaa qof markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay adin moogtaa afmaayma waa sida Ingiriiska oo kale waa British oo kale si kuma jirto ماشي سي أتكو أريد كتور بس علي هذا مثلا علي صار ملاهي سي ذا كتور علي علي ولا يو علي لا واي مرة هذا محاتي مثلا برورته وكلا برورته حال عدين ولا عدين برور عدين كوجر سوما عدينته سي ذا كتور مرك عدينته معكو صاري كاس مرة عيدان لم أور نقول الدين مدبو من بيرج العسن وعلاج العسن عدين تان هيلب كانوا برورته مدوا بيكرو ما حد مركو دبك ساو صاربا فش مركو كسو قادر إنه بيساعدوا ملايا باشو عيرينو كينا مرك ما حد ربع إن أنا لعب سنين وعدين تلوها يو فش ولي بهايسو متى قالوا حالي الدقائق ده مركي لجورو لقلاي سي يعني لوجا ريفو لوجا تنكره أما بولكا بحالوش شبا بيوكلو biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagadu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka marka uur nugulka ay sheeganay cabsanayo xogasaas qiiq markay dhahdo inay noo soo maleynaa ma rifi kara marka asna maamaha loo sameeyay waxa la yiri doorada iyo kii guraas ee rifowka la jeed waligeed baqiiq ha ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhamayso maadalka aad ka dhamayso markii dadku ay soo jeestaan oo dhahan waraa qayla naga daaya danteen anaga naqaan idinku nooma yeerinaysaan sidee yeelan Turkiga waxay dhahan anaga dib meesha naga soo gaaray walaalahan Suuriya dibaa soo gaaray qaxootay Turkiga yihiin waa culays weyn meeshoodan ku celinayna dhulkooda ay dagaayaan haddana Carabta oo Sunniyiinta iyo Turkiga in la kala gooyaan rabaa Turkina waxa mabda ka ah Carabta inay isku xirmaan oo maadaama Sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inayo ee la gumeysanayo ee la rafaadinayna ay Sunniyiin taayeen زعيمك ويناء حرمين كجوجي اللي جربي إنه السنيين تعرورينا السجا أي محاهدة دباتنا وكي ما طيوا حاجة كلام وكسر صفت أو مريكان كو بعض أيوة وعبسنا كالي وردي أولها والله مريكان كل بقص نقنا عليه مشروع وين وكنا كولا بس ده حفر شن وهرجعون مشروع وحكوب بحس أنت مشروع أنت سكوب بحس أنت مركي الاسكوب دارو أنت أو مليار أي نقنا يسا مركا اسكب بحي وبحين كرتانة هيوان بحيننا وحوري السعودي والحنوية مريكان كدايا ودكنا ودوجين واسي ساعة لسنا إنه أكله ساعة أنتوا نوليه وان لسنا إنه هدور بنتنا مقار كان كبحيننا أيوة أستاذ اللي سومر بينا داوريا نمل لسنا يسد مقار كان اللي مبحيسد ضد كان مسلمين تا سنيين تا يعني زعيم ونقونينا ورتركي آوي ماليزيا آوي باكستان آوي أنا اسكندر سنة دقالة هنا عيدا كان أنا قال إسك علنه جاب إسك علنه وده أساس نقطة مسلمين تو إسرائيل هاين لكن محيكو قلت الله ناوي وقاعد أدور كجوكت يعني مقتي وحكجر كوا واوين وحاكم كوا واوين بعيد كل حلاقي هاي دمار كل أما الدبي أيول لاقي وحوري وقاعد مركز على الإسكسو الدشاء وعلى الإسك قبصة وحوري وقاعد وحي جبتي مالك بعيد وكفي فولي كالنغضي هدو بعيد وجيزي أهان لها حوق يسن وقبيسان أهان لها وقاعد وحسو دوان لها مجرته لكن وقاعد وحي جبتي مالك وبعيد كفولي يوبي وفولي وكالنغضي
marka sunniyiintu waxay jabeen meeshii ardul haramayn oo asxaabta ay joogi jireen oo nabiga uu ku duugan yahay oo la rabay diinta in laga faafiyo oo meeshii muslim lagu dhibaayo war muslimka maxaa loo dhibaaya oo muslimiinta ay wakiil u noqdaan oo ay u doodaan yaab u doodayeen waad aragteen Soomaaliya tagaaya baasaboor wata Soomaaliya koo walaalkiisa oo baasaboor Canadian ama Mareykan wato oo ay xajka isla aadeen way soo socdaan waa Soomaali waa walaal waa isku aabo waa isku hooyo laakiin warqadaha ay wataan baa kala duwan kii oo Canadian ka watay ama Mareykan ka watay saadid garoonka looga dago Canadian American ma islam markii gal socole kii walaalkiisa la socday adiga warqada ay tus baasaboor Soomaali xaq istaag adiga warninkan aasa soconaa walaalaanahay sadwala ku tinkan Mareykan way adna Soomaaliya tahay yay ahayd in la soo dhaweeyo Soomaaliya in la soo dhaweeyo maxaa yeelay waa wadan muslim ah meesha loo socdana waa dhulkii muslimiintu iska lahayn al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa al-aakif fihi wal-badi kadegan iyo ka banaanka iimaanaya muslimiinta iska leh waxa kharashka ay muslimiintu u bixinayaan waa jacayl masaajidkaas ay u qabaan masaajidkuna ma hotel ay dad leeyihiin ma oo la ijaarinayo waa al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa cid gaar u qaadan karta ma jirto ummadda muslimiinta oo dhan oo ka wada dhaxeeya marka al-muhim Turkiga waxay sameeyeen markay u soo diyaar garoobeen ay soo jeesteen oo dhahan hawshan waan qabsanaynaa Mareykan dantii uu yaqaanay wuxuu yiri aan ku imaado wafdi uu soo diray 5 saacadood la wada hadlaayay waxa lagu heshiiyay nimankan aad la dagaalayso marka hore anaga sameeynay 5 maalmood oo aan meesha uga bixino oo aan kaaga saarno adoon dagaalaminba 5 maalmoodna si hubka waaweyn ee siinay haysan xataa way ka tagayaan ma qaadanayaan maxaa saayidin diiday baxu dhaw waan siina markaas halkaas maanta waxa la soo ambaliinay Turkiga intasarat waxaana u suurta gashay aayadii oo dhahaysay wakafa Allahu al-mu'minina al-qital yani dagaal inay gasho oo dadka ma fiicno oo muslimiinta yani hadiiba laga maarmi karo dagaal la tatamannu liqa al-adu wasalu Allah al-aafiya laakiin markay ku qasabto oo meel kale ka baxda aad weydo aqliga iyo sharcigu wuxuu sheegayaa war iga leex inaad aad qofka ku dhibaay marka haday dadku soo jeestaan waa kaas shucuubtu marka maanta way nool yihiin Tunis waa maqlayseeno yani doorashay galeen shacbiga gaar ahaan dhalinyarada ayaa ugu badnaa dadka oo leeynay oo laha anaga xurriyad ayaan rabnaa markaas wixii la yaqaanay ee siyaasadii hore dhan inta laga baxay yaa waxa la soo saaray madaxweyne dhaxdhaxaad ah oo meelna aan ka tirsanayn laakiin wadani ah sifada uu leeyahay ay tahay Tunis oo ogtihiin Faransiisku iyo luqada ay ku hadlaan xataa Faransiisina ay u badnayd oo xataa Carabiga markay ku hadlaayaan waxa jiidanayaan naqmadii Faransiiska Carabigiisii Faransiisku ugu hadlaayaan waa madaxweynaha Tunis ka soo baxay oo luqada Carabiga ee fasiixa ah aan hal kelimo ku soo dareyn oo Carabiga soo ugu hadlaayo oo fasiixa ah aan saameyn lagu yeelan su'aalo la weydiiyo ugu hor waxa kamid ah yahuuda ka waran markaas ay yahuuda Soomaa dagaal naga dhaxeeyo maxaa yeelay waxay haystaan shacbi ayay gumaysanayaan adduunka dhan saas la rabaa in la dhaho ma aha yahuudu say dadka u sheegayso yahuudnimada ayaana lagu haystaa oo mucaadaatu saamiya yahuudnimada la nicbi arintu yahuudnimo ma ah ee yahuud waa dhulmiga ay geysanayaan maxaa yeelay wadan islaameed intay qabsay waa quwaatul ihtilaal qarni 12aad ayaa waxay taagan yihiin aan dadkan gumaysan oo ku kor fadhino war dadkan ka kac maxaa kartaan waa Falastiin Turkiga waa ogtii madaxweyne Erdogan intuu qaramada markuu tagay iyo khariidada wuxuu soo saaray yahuud ay ku degtay Falastiin markaas 48 markay soo degeen 47 yahuud bal fiiriya meesha ka joogtay waxyaar markaas maanta xagee joogtaa bini aadamnimada keenaysa in yaani dhaalim la taageero bini aadamnimada ma laakiin islaamka iyo bini aadamnimadaba waxay sheegayaan qofka madluumka in la garab istaago marka shucuubtu waxay u socdaan inay xoroobaan wayna xoroobi doonaan ficlan inagana shucuubtan baan qayb ka nahayo hadii wax la is dooranayo haday dadweynuhu soo cishtaan ama la helo inay dadku codeeyaan oo intii nabadgelyo la helo la yiraahdo yaa idin xukumaaya soo saara qofkii idin xukumi lahaa waxa loo dadweynuhu waxay soo saarayaan qof fiican oo ummadda danaheeda ka shaqeynaya laakiin dadweynuhu waxa inagu dhacay xaqi aan lahayn ee ahay qofku xukumay asaga inuu doorto mar hore marna burbur ayaan la dooran weynay mar horena waa la diiday oo xooga la isku qabsaday ka bacdi waxaan noqonay meel hadda qofku uu ka soo galo soo galo wali inooma fariisanin laakiin waxa imaan doonta xilli dadweynuhu dowrkooda intuu soo noqdo siyaasi kasta oo dadka iska gadaayo oo dadka wax ku soo celinayo oo hadduu dadka iska hagaajin waayo uu kursigiisa u cabsanayo uu leeyahay waan idin shaqeynaya asoo jacayl dad ayna ahayn xataa waa markuu og yahay dadka inuu cod ka rabo laakiin markuu san dadka cod ka rabin wax noo qab hadaa dhahdin oo maxaan kugu fali ayaa meeshan ku taala maxaan kaaga sasaban maxaan kaaga bedelay
oo soo inaan ku doorto ma rabtid maya ma doorasho mar in hadda kor waxa la yiri guriga Ilaahay nabad kugu ma geeyo waaba hadaan u socdo u dhahay xaqiisa ma u socdo marka hadda waa sidoo kale shacabkii laga cabsan lahaa oo dhila war dadka inagu dirina guriga uma socdo way macna codba kama barab laakiin ha fogaato ha dheeraato ha socoto waligeedba ugu dambays waxay intagi doontaa shacbigu wuxuu rabo ida shacbu yawman arada alhayaa fala budda an yastajiba alqad dadku haday inay noolaadaan ay go'aansadaan cid kasta shacbi ayaa ka xoog badan marka fikradda inay isbedesho oo dadku ay noolaadaan oo ay wadankooda dhistaan oo xor ay noqdaan oo wixii ayaga u dan ah ayagu ay soo saartaan waa mid aan u socono hadii marka taas dadka qaar ay siyaasad u yaqaanaan oo ay misaadka maxaa looga hadlay dhahayaan waxaan ku soo gabeynaa xigmadii uu ka tagay Sheekh Xasan al-Banna wuxuu yiri waxa idinka siyaasad ayaad ka shaqaysaan oo siyaasad iyo diinta soo geliseen markaas wuxuu yiri yaa qowmana wuxuu yiri inna nunaadiikum waan idin naadinaynaa waan idin dhawaaqaynaa wal qur'aanu fi yaminina qur'aankuna gacanta midigta ayaan ku haysanaa was-sunnatu fi shimalina sunnadana bidixda ayaan ku haysanaa wa amalu salafi salih min abnaa'ina qudwatuna dadkii naga horeeyay muslimiinta hadan ka sheekay nabiga ya Abu Bakr Siddiq ya Umar ya Uthman ya waxna qudwatuna waa dadkan ku dayrayno fa idha kana hadi عندكم min as-siyasa hadaa sidan siyasad taqaanaan fa hadi siyasatuna anaga siyasadena waa taas wa idha kana man yad'uukum ila al-islam haduu yahay qofka islaamka idinku yeeraya wa ila ahkaam al-islam islaamka ahkaamtiisa wa ta'aalim al-islam qofka idinku yeeraya haduu yahay عندكم سياسيين hadaa ka siyaasad taqaanaana فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة هذه تاس سياسة أكتر كتاي تذكر وحيل دير سياسة أيامنا نوجاده مركنا واساس وحن كهالين والدين ومبادئ وأفكار الرميسية وذاتك دم توضع يكون جرتو الدنيا آخر ما يكون لبنا إن دين توضع نلاش هذا كوك قابيستان إلى إن كورة الجليان آخرنا أيجو عمل ونكسر صوص ما يصير والدين توضع الدولة توضع الشعب كوضع أيوة في عين لصوص صار تاس ومدان كشقينينه هذه تاس مركا ذاتك قار سياسة وكسايان bal wixii kale ayagu iska aadeen tamida khiyaanada shaqo ku balin laakiin midda toosinta ee umada lagu dhisaayo waa mideena Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqayna waafajiyo umadeena Ilaahay isu soo celiyo dibaatada Allah inaga saaro umada Soomaaliyeed doorka Ilaahan jirtayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo jazaakumullahu khayr